good cusbo waa magaalo ku taalo gobolka Afdheer kana tirsan maamulka kilka shanee dalka Ethiopia cusbada ugu badan ee dalka Ethiopia laga isticmaalo ayaa laga soo saaraa dadka deegaanka iskaashato gaar ah sameystay iyana ugu badan dadka cusbada halkaasi ka soo saara kadibna ka sii dhoofiyo Shaafici Cabdi Shukri waa madaxa walaalaha Afdheer ee cusbada halkaasi ka soo saaro 5 ilaa 7 kilomitir baa laga soo saaraa inta kalena waa kayd oo waxaan leenahay inta kalena kayd weeye oo waxaan leenahay xilliga dhulka uu isbedelo oo cimiladu ay isbedesho in iyadana la isticmaalo hadba dhulka wad garanaysan sida markii muddo hadda dhulkaas waa hor isticmaali jirnay haddana xogaa isticmaalka sida hore uu maartay uu ka yaraadayo macdanta markay hadda meesha xiran bay u biyar badanaysaa marka dad badan oo gobolka Afdheer degan guud ahaan gobolka Afdheer waxaan dhihi karaa 70 ama 80 way ka faa'iideystaan macnaha waa cid kasta barkad bay ku leedahay halkan degmooyinka sida Hargeysa iyo Baarey iyo Jarato kale special kuwa gaar bay maanta u isticmaalaan dadkooda iyo gaar u leeyihiin barkadaha dhulka marka dad badan baa saas u leh haddaba marka hanaanka cusbada loo soo saarayo marka indhaha u qabtaan kaliya maskaxda waxa ku soo dhacaysa inay ka kooban yihiin xaani iyo carro la tuuray balse Shaafici wuxuu ka warramayaa hanaanka cusbadani uga soo qaadaan godka halkan waa meesha lagu daaweeyo milixda iyadoo ceyrina ayaan xaq ka soo rabnaa gudaha waxaan ku rognaa baqaradan sida kan oo kale waxa yaala mashiimo waaweyn kan iyo laba kale gudaha ku jiro oo arki doontaan ayagana waxay ku daraan dawada oo idinka dhankiisa waxa yaalo haanka oo kii dawada ku jirto dawada baadsa ku jirto ayadoo macnaha caag 22 biyaha oo dawada lagu daray qiyaasan baa lagu shubay haanka kadib marka waa la istaaraya bas ilaa hanka uu ka dhamaanayo dawada sida loogu talagalay anagu waxna saaran milo wax kulli automatically oo inta godkaasi dhexdiisa aan ku jiray waxa indhahaygu qabanayeen tiraga waari oo halkaasi laga rayo iyo kuwa horaan loo sii raro ka sii baxaya magaalada balse Shaafici wuxuu aaminsan yahay wada xumo culus oo ka jirta deegaankaasi in saameyn ay ku yeelatay dhoofinta cusbada dibadda kale jidadka dawada aragteen wadooyinka way gooyihiin baabuurta banaanka taagan oo kale waxay gaarayaan ilaa 50 gaari ayaa taagan kontaga gaari ma jiro wada ay ku dhaaqaan waa baabuurta qaaliga Eurotrack kale yiraahdo gaari kasta waa la raaw shiraacan yahay laakiin barta ku dhaaqalha ma wajirtaba waa inuu taagnaado noqon muddo bil ah oo halka taagnaado si macnaha wadada markay furanto oo ay dadka masaakiinta ee xoogsta ay meelaha dhiiqooyinka guraan ee wadooyinka la waxayay waxa ay noqonaysaa in maartay kadib ay la maro isku soo celceliyo halkani waxa ka muuqanaya dadaal fara badan oo dadka rayidka ay sameeyeen iskaashi guud oo ilaa iyo 1500 dad gaarayo iskaashata ku aashir godkaasi cusbada laga soo saaro balse kamaysan muuqan wax calaamad oo dadaal dawladda dalka Ethiopia ay ka sameysay qaryadii la soo dhaafayna wuxuu ahaa godkaasi mid si iskooda dadka deegaanka ay cusbada uga soo saaranayeen Maxamed Faarax Shire VOA gobolka Soomaalida dalka Ethiopia deegaanka god cusbo